dhacdo xanuun badan ayaa saaka ka dhacday degmada Hodan ee gobolkan Banaadir kadib markii ciidamada amniga Soomaaliya ay maanta xirteen wadooyinka oo dhan hakadna oo galay isku socodka gaadiidka. Arrinta dhacday ayaa ahayd in hooyo uur lahayd ay ku dhashay garaash ku yaala isgoyska Albaraka muddo dheerna ay ku qaadatay foosha kadib markii ay ciidamada koofiya casta ay diideen in isbitaal loo qaado. Dad goobjoogyaal ah ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in ay saacado badan ku rafaaday foosha hooyadaasi ayna weysay gargaar dhaafisan in Mariyo ay ku dadaan dadkii ku leexday. goobta arrintan ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada Soomaaliya oo dadkii la hadlay ku yiri in aysan deeg karin xitaa haddii ay isku dhintaan hooyada iyo dhalankeeda. gaari ambalaas oo ay dirtay dowladda hoose Xamar ayaa la sheegay in goobta uu gaaray 2 saacadood kadib markii ay dhashay hooyadii foosha ku dhibtootay. qof ka mid ah dadkii ka shaqeynayay garaashkii ay hortiisa hooyadan ay ku dhashay ayaa u waramay keenan. wallahi walaalkay waxay aad iyo aad u ajaa'ib badan ayaa ka dhacday isgoyskaas waxaantii maamo markaas xaamilo ah oo fool ku soo booday gaari taxi la soo cararay isgoyskaas markuu la marayo ayuu ilaahay amarkiisa isgoyskaas joogo uu yiri ma mari kartid meeshaan wadadana waa xiran tahay. taxi baa wuxuu ku yiri walaalo waxaan wadaa gabar xaamilo ah oo isho gabar fool ah waxa waaye oo xaaladeedu ay meel xun marayso. ninka askariga uu ku adkeeyay wuxuu yiri ilaa wadadana waa xiran tahay ma maraysid. islaantii waxaa dhacday ilaahay amarkiisa inay gaarigii ku dhexdhashay. gaarigii markay ku dhexdhashay ayaa markaas ka bacdi gaarigii uu ambalaas dana loo raadiyay. sidaas ambalaaskii u qaadayo islaantii wixii lagu dhifo karay iyo wixii awlaadii iyo cunugkiiba wixii dhammaan isbitaal loo carray markaas ka bacdi. askarta darawalka uu degayba darawalka uu yiri islaan xaamilaha wadaa oo waxa waaye oo foosheedu waa xaaladdeedu dambaysay maraysaa. askarta waxay yiraahdeen war naga laabta fooshaada maana hada shaaday rabtay bishii ku dhashatay rabtay. ilaahay amarkiisa waxaa dhacday inay islaantii meeshii ay ku umusho oo markaas ka bacdi haddana ambalaas loo raadsho. markaas ka bacdi ilaahay amarkiisa meeshii rag iyo dumar intay ahaayeen oo meesha marayay waa ku yimaadeen. markii dambe ilaahay amarkiisa islaana la arkay marka islaantii ay ka soo qabatay oo ilaahay ayuu ka soo saartay. walillahi alhamdu sidii marka ayadii xoogaa dhigta xoogaa ku dhaweyd ayaa gaari ambalaas loo dalbay. gaariga ambalaaska uu baa la cararay maya waa wada caadi oo baabuurtu ii sheeg markii hore ay mari jireen balse hadda tan askar la soo dhigay oo la yiri askarta wadada baabuurta laga xiriyo lama soo mari kare. ambalaasta markii dambe ka bacdi markay islaantii umushay oo meesha ku umushay ambalaasku waxay qabataan waxa waaye